bismillaahi raxmaani raxiim kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal halkan oo warbaahinta xogta dalka qodobada warka warbaahinta xogta dalka aad ku daawan doontaan waxaa kamid ah howlgal la geystay qasar isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo laga furiyay magaalada muqdisho madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo dalka koonfur Afrika uga qayb galaya caleemasaarka madaxweynaha cusub ee dalkaasi maamulka galmudug oo ballan qaaday in la abaal marinayo askarigii isku duuban in isku qarxin lahaa degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud faahfaahinno dheeraad ah oo ka soo baxaya qasaaraha ka dhashay shil gaari oo ka dhacay wadada isku xirta magaalooyinka Hargeysa iyo Berbera oo ka tirsan maamulka Somaliland dowladda Soomaaliya oo xiriirka u jaraysa dowladda Kosovo kadib dalab ka yimid dowladda dhigeeda ee Serbia madaxweynaha Jubbaland oo abaabulkii ciidan ee ugu xoogganaa ka wada gobolka Jubbada Hoose iyo dowladda UK oo dowladda Soomaaliya ugu deeqaysa lacag malaayiin ah si wax looga qabto xaaladda dalka Soomaaliya inta daawateen waxay ahaayeen saaxiibayaal qodobada ugu door karoon xogta dalka si aad u ahaataan kuwa hela wararka iyo warbixinada ugu xaqiiqsan isla markaana ugu dambeeyay ahmogaanin in aad kanalkan saartaan subscribe saaxiibayaal u diyaar garooba qodobadii aad daawateen oo intii hore ka faahfaahsan aynu ku bilownay howlgal la geystay qasaaro ayaa ciidamada dowladda Soomaaliya waxay ka fuliyeen magaalada caasimadda ah ee Muqdisho ciidanka booliska Soomaaliya ayaa sheegay in howlgal ay ka fuliyeen rugta qudaarta oo ku taala waaxda Taleex ee degmada Hodan kadib markii shacabka ay ku soo wargeliyeen in laba nin oo burcad ah oo hubeysan goobtaasi shacabka ay ku dhacayaan booliska waxay sheegeen mid ka mid ah burcadka goobta lagu toogtay halka midka kalena uu ka baxsaday waxa howlgalka ku dhaawacmay sargaalka booliska rugta xukumayay sidoo kalena waxa ku dhintay hal qof oo shacab sida ay sheegtay taliye ku-xigeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed Sakiya Xuseen Axmed dhanka kale waxay ciidamada booliska gacan ku soo dhigeen askari boolis ah oo maalintii shalay dad shacab ku dhaawacay degmada Howlwadaag ee gobolka Banaadir sida ay sheegtay isla taliye ku-xigeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed Sakiya Xuseen Axmed ciidamada booliska ayaa maalmihii ugu dambeeyay laban laabmay howlaha ay ka fulinayaan gudaha magaalada Muqdisho xilli caasimada ay martigelisay falal duko amniga dhanka kalena faahfaahinno dheeraad ah ayaa ka soo baxaya qasaaraha ka dhashay shil gaari oo ka dhacay wadada dheer ee xiriirisa magaalooyinka Berbera iyo Hargeysa ee maamulka Somaliland wararka ka imaanaya magaalada Hargeysa ee caasimadda maamulka Somaliland ayaa sheegaya in halkaas uu ka dhacay shil qasaaro nololeed iyo hantiyadeed geystay ugu yaraan 4 qof ayaa ku geeriyooday halka 8 kalena ay ku dhaawacmeen shil gaari oo ka dhacay magaalada Dacar Budhuq la yiraahdo oo u dhaxaysa magaalooyinka Hargeysa iyo Berbera oo ka wada tirsan maamulka Somaliland gaarigan shilka gale ayaa ahaa baabuurta qaada dadweynaha ee baska ama caasiga loo yaqaano oo ay lahayd shirkadda Bixin Group oo ka shaqeysa isku socodka dadweynaha deegaanada iyo degmooyinka maamulka Somaliland wararku waxay intaasi sii raacinayaan in dhaawacyada hadda la dhigay cusbitaalka Dacar Budhuq kadibna loo sii qaadi doono cusbitaalka weyn ee magaalada Hargeysa ee caasimadda u ah Somaliland shilalka ayaa ku soo laablaabtay maalmihii ugu dambeeyay wadada xiriirisa magaalooyinka Hargeysa iyo Berbera waxaana arintaasi loo sababeynayaa wadooyinka oo muddo dheer aan dayactir helin iyo sidoo kale wadayaasha gawaarida oo aan lahayn khibrad ku filan isla markaana gawaarida ku kaxeynaya xawaare sare wili saaxiibayaal qaybaha hore ee warka warbaahinta xogta dalka ayaa daawanaysaan dhanka kalena madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa dalka koonfur Afrika u tagay ka qaybgalka caleemasaarka madaxweynaha cusub ee dalkaasi koonfur Afrika Cyril Ramaphosa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa u ambabaxay magaalada Pretoria ee caasimadda dalka koonfur Afrika madaxweynaha waxa halkaas uu kaga qayb galaya xafladda caleemasaarka madaxweynaha cusub ee dalka koonfur Afrika Cyril Ramaphosa oo ku marti qaaday xafladiisa qaar ka mid ah madaxda caalamka madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa inta uu ku sugan yahay dalka koonfur Afrika waxa uu kulan duceedyo la yeelan doonaa hoggaanka dalkaas iyo madaxda kale ee dhigiisa ay ka soo qayb galaya munaasabadan isaguna kala hadli doona danaha wadajirka ee kala dhaxeeya dalka Soomaaliya wafdiga madaxweynaha oo ka qayb galaya munaasabada caleemasaarka madaxweyne Ramaphosa waxaa ka mid ah isla markaana ku wehelinaya wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga xukuumadda federaalka Soomaaliya Danjire Axmed Ciise Cawad iyo agaasimaha guud ee madaxtooyada qaranka Dr. Nuur Diiriye Xirsi Fursade si kastaba ha ahaatee Cyril Ramaphosa ayaa muddo kooban haya xilka madaxtinimo ee dalkaasi koonfur Afrika iyadoo haatan caleemasaarkiisa ay jiraan madax fara badan oo caalamka isaga imaanaya ku sii qulqulaya dalkiisa si ay kaga qayb galaan qaybaha dhexe warka warbaahinta xogta dalka waa daawanaysaan saaxiibayaal iminkana Galmudug
maamulka galmudug ayaa ballan qaaday in la abaalmarinayo askarigii isku dhigay islamarkaana isku duubay nin isku qarxin lahaa xaflad ka socotay degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud. wasiirka warfaafinta maamul goboleedka galmudug Maxamuud Xasan Masagawaay ayaa sheegay in maamulka galmudug ay isku diyaarinayaan in abaalmariyaan askarigii fashiliyay qarax la doonayay in lagu qaado islamarkaana lagu baabiyo dad shacab ah. waxa uu sheegay madaxweynaha galmudug inuu ballan qaaday si degdeg ah askarigaasi loo abaalmarin doono islamarkaana uu kaga mahadcelinayo sida ay shacabkooda u badbaadiyay. wasiirka ayaa tilmaamay in guli ay socdaan howlgallo cusub oo lagu baadigoobayo xubno ka tirsan xarakada al-shabaab oo sida uu sheegay suurtagal tahay inay ku sugan yihiin xaafadaha degmooyinka Gurceel. ciidanka ayuu sheegay inay qabteen ku dhawaad 5 ruux oo lagu tuhmayo falkii shalay ka dhacay degmada Gurceel ee shacabka lagu leyn rabay. askarigan ka mid ka ilaalada madaxa xukuumadda galmudug ayaa maalintii shalay isku duubay ruux isku soo xiray waxyaabaha qarxa oo doonayay inuu isku qarxiyo munaasabad ka socotay degmada Gurceel walow qaraxa uu dhici waayay sidoo kalena askarigu ku guuleystay inuu ninkaasi gacanta ku dhigo. dhanka kalena dowladda federaalka Soomaaliya ayaa xiriirka u jaraysa dowladda dalka Kosovo kadib codsi ka yimid ee dowladda dhigeeda ee Serbia. Ivan Dagig oo ah ra'iisul wasaare ku-xigeenka ahna wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Serbia ayaa 22 bishan May magaalada Muqdisho ku yimid safar aan la shaacin sida ay sheegtay warbaahinta dalka Serbia. kulan ayaa magaalada Muqdisho ku dhex maray madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda federaalka Soomaaliya Axmed Ciise Cawad, ra'iisul wasaare Xasan Cali Kheyre iyo ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Serbia. waxaana kulankaasi looga hadlay sidii Soomaaliya ay ugu laaban lahayd go'aankii xukuumaddii Sheekh Shariif Sheekh Axmed ay dal madax bannaan ugu aqoonsatay dalka Kosovo sanadii 2010. madaxweyne Farmaajo ayaa u sheegay Ivan Dagig, ra'iisul wasaare ku-xigeenka ahna wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Serbia in Soomaaliya aysan marnaba taageeri doonin dhaqdhaqaaq kasta oo ku saabsan gooni isu taagga iyo aqoonsi raadis ka hor imaanaya xeerarka caalamiga islamarkaana uu ka laaban doono aqoonsigii Soomaaliya ay siisay Kosovo. Soomaaliya ayaa ka mid ahayd 69 dal oo dal madax bannaan u aqoonsaday dalka Kosovo sanadii 2010 waxaana xiriir wanaagsan yeeshay Kosovo iyo Soomaaliya. Kosovo ayaa ka go'day dowladda dalka Serbia waxaana ay ku taalaa koonfur bari ee qaaradda Yurub. Kosovo dadka ku nool ayaana tir ahaan lagu qiyaasaa in 90% ay yihiin dad muslimiin ah waxayna taageerada ugu badan siiyay dalalka Islaamka uu codeeyay inay noqoto dalkaasi dal madax bannaan. iyadoo ay taasi jirto ayay dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxay haatan go'aan ku gaareen guud ahaan in dalkaasi lagala laabto aqoonsiga ay Soomaaliya siisay sanadii 2010 kolka oo dalka Soomaaliya uu madaxweyne ka ahaa isla markaana maamulayay Sheekh Shariif Sheekh Axmed kadib codsi ka yimid dowladda ay ka go'day ee Serbia. saaxiibayaal weli warka warbaahinta xogta dalka ayaa daawanaysaan qaybaha dambana waan ku sii dhawaaneynaa iminkan Jubbaland. madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa dhaqdhaqaaqi ugu xoogganaa ee ciidan waxa uu ka wadaa deegaano hoostaga gobolka Jubbada Hoose. madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa la kulmay qaybaha bulshada ee ku nool deegaanka Buula Gaduud oo ka tirsan gobolka Jubbada Hoose. madaxweynaha ayaa dadkan ka dhageystay baahiyaha ay qabaan waxaana faray hay'adaha kala duwan ee maamulka in ay adeegyada gaarsiiyaan meelaha laga saaray xarakada al-shabaab. madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo shacab fara badan kula hadlayay deegaankaasi Buula Gaduud waxa uu ballan qaaday in maamulkiisu uu diyaar u yahay inuu dhaco doorasho xor iyo xalaal ah oo bisha 8 Agoosto ka dhacda deegaanada maamulkaas. hase ahaatee waxa uu dhankiisa codsi u dirsaday guud ahaanba ka soo qaybgalayaasha kulankiisa oo uu ka dalbaday in ay diyaar u noqdaan la dagaalanka xarakada al-shabaab sida uu hadalka u dhigay. waxa uu dhanka kale la sheegay in dadka kulanka ka soo qaybgalay madaxweyne Madoobe uu u sheegay in ay diyaar u soo noqdaan xoreynta deegaanada maamulkaas. sidoo kale madaxweynaha Jubbaland ayaa saacadaha soo socda la filayaa inuu la kulmo saraakiisha ciidamada dowladda iyo kuwa Jubbaland ee ku sugan deegaano ka tirsan gobolkaasi Jubbada Hoose waxaana uu ku soo aadaya iyadoo socdaal uu madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ku bixinayo deegaano ka tirsan gobolkaasi Jubbada Hoose iyadoo maamulka Jubbaland uu diyaar garoobayo doorasho madaxweyne oo bisha Agoosto ka dhacda deegaanada maamulkaasi. ugu dambeyntiina dowladda dalka UK ayaa dalka Soomaaliya ugu deeqday malaayiin dollar si wax looga qabto xaaladda amni ee dalka. dowladda UK ayaa sheegtay in lacag dhan 8 milyan oo gani u dhiganta 10 milyan oo dollar ay ugu deeqayso taageero bini'aadanimo oo Soomaaliya ay abaaruhu saameeyeen wax looga qabto. taageeradaasina ay tahay mid wax looga qabanayo cunno la'aanta, nafaqa darrada, biyo nadiif ah
iyo sidoo kale adeegyada caafimaadka aasaasiga u ah tallaalka xoolaha nool. Taageeradan oo ay inta badan bixinayso dowladda dalka UK ayaa lagu yiri xafiiska gargaarka ee dowladda dalkaasi Britain. kumanaan qoys ma helin wax gargaar ah, sidoo kalena tan iyo 2017 waa dad ku nool xaalad dheer ayaa lagu yiri warbixin aad u dheereed oo soo saartay dowladda dalkaasi UK. xafiiska howlaha bini'aadanimada qaramada midoobay ee la yiraahdo UNOCHA ayaa sheegay in dad lagu qiyaasay 5.4 milyan oo Soomaaliya haatan ay qarka u saaran yihiin cunno yari bisha July inay u geeriyoodaan, halka 2.2 milyan ay dhici karto in ay soo food saarto cunno la'aan hor leh. warbixinta aad u dheereed oo la soo koobay ayaa sidoo kale lagu sheegay in 20kii bishan May ee 2019 hay'adaha gargaarka Soomaaliya ay bilowday qorshe looga jawaabayo abaaraha, kuwaas oo ku baaqay in la helo khayraad looga hortagi karo sidoo kale caawinaadyo ka yimaada wadamada dunida ayaa lagu yiri warbixinta ka soo baxday dowladda dalka UK. UK ayaa qayb ka noqonaysa wadamo fara badan oo dalbanaya in Soomaaliya lala soo gaaro xaalad bini'aadanimo ay ku soo food leedahay, waxaana ka horeeyay qaramada midoobay iyo dowladda Shiinaha oo hore ugu dhawaaqay in taageero la gaarsiiyo Soomaaliya iyagoo ka baaqaya in dalkan Soomaaliya ay ku soo food leedahay abaar siday hadalka u dhigeen. guud ahaan saaxiibayaal, qodobkaas ayaa u dambeeyay warkii aad ka daawanayseen warbaahinta xogta dalka aan ku soo koobayna isla markaana ay kugu soo bandhigayna dhacdooyinka ugu waaweyn ee ka taagnaa gudaha dalka Soomaaliya. Xasan Mogaan saaxiibayaal, si aad u noqotaan kuwa ugu horeeya ee hela wararka, warbixinada iyo barnaamijyada markaasi taagan, in aad kanalkan saartaan subscribe. Tani kuna dambe nooli kulan.